السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my channel. dhammaantiin waan idin wada salaamayaa. إن شاء الله maanta waxaan tegaynaa another trip. إن شاء الله waxaan tegaynaa buurta Gacan Libaax. daawasho wanaagsan. wadadii wanaagsaneed waanu ka soo leexanay. wadadii hore waxay ahayd Berbera, wadadeedii cusbeeda la dhisay, laakiin markaad tuulayaasha tegaysid ama meel ka baxsan tegaysid waxaad maraysaa wado aad u xun oon dee la hagaajinin. marka ilaahay ha nagu nabad qabgeeyo insha Allah. Gacan Libaax waxay u jirtaa Hargeysa 2 saacadood iyo badh ama 3 saacadood ugu badnaan, laakiin anagu waanu lunay meeshii waanu garan weynay. marka imika dadka ayaanu weydiinaynaa, reer meel jooga ayaanu weydiinay, meel way noo tilmaameen, laakiin haddana still waanu lunsanahay. ilaahay khayra ka dhigo. wadad aan sanayn ayaanu soo marnay, wadooyin burbursan, buuro dhexdood baanu dhex marnay, hogag baanu dhex marnay. ilaahay khayra ka dhigo. bal ilaahay noo soo fududeeyo. marka wadadan aad arkaysaan buur dhakadeed weeyaan. aan wadada arkaysaan gaadhigu sidoo socdo like qun yar buu socdaa, waayo dhagaxaanta ayaa kala siibanaya, gaadhiga shaaga ayaa siibanaya. magaaladan aan soo galnay, magaaladan Cadaad ayaa la yiraahdaa. waanu weydiinay iyagana, meel bay noo tilmaameen, haddana weli waanu lunsanahay. insha Allah ilaahay bal khayr ha noogu dhameeyo maanta. waanu daalnay, imika waxaanu qaadanaynaa break, waan yaro soconaynaa. we still lost. ilaahay ha soo asturo amuuraha maanta. misajaha wareerbay arrinkaydu joogtaa, sowka jarihi aan waday, dhanka low janjeersaday, allahayow janiyo naar adakala jiheeye, aniga joogayga maqan qalbigayga lama jiro, oo jabiyo maamuus jirabadaga la soo maray, oo jabiyo maamuus jirabadaga la soo maray. isagana jacaylkuba u leeyahay dad jala ah sidee isagana jacaylkuba u leeyahay dad jala ah sidee alxamdulilah meeshii waanu soo gaadhnay, laakiin waxa aan maqlay, fiidiyoyo hore aan maqlay, waxaa layidhi meesha waxaa yimaada shabeel. marka waxaan u malaynayaa excitementkaygii faraha badnaa aad ayuu u kala dhantaalmay. marka ilaahay khayra ka dhigo. ilaahay nama tuso shabeel. aniguna xayawaanaadka o dhan waa necabahay. وجروده بلو كيسر
halkananu maanta joogaynaa ku qadaynaynaa insha allah meelaan ku fadhiisanana waana la siinayaa iminkana waxaan sameynaynaa qadadayadii safarkayga maanta waxaa soo fududeeyey Hargeysa Tour companygaas oo ku kaxaynaya meel kasta companyga waxaa asaasay inan dhalinyaro ah very young very talented insha allah markaad Hargeysa tagtid make sure inaad la xidhiidhaan iyada meel kasta idin geynaysa inan wanaagsan weeyaan imikana waan isku ken yara xayeysiinayaa anigu horta Soomaaliya kuma soo korin laakiin sidan u hadlayo waxaad ka garan kartaa af Soomaaliga boqolkiiba boqol inuu yahay so imika xayawaankan anigu sheegay groupkii la socday may garanayn magaciisa maayno waxay ahaayeen reer Afrika ay ahaayeen markaa waan isyaraa ammaanayaa miyaanan midaaliyad dahab u qalman I was so proud of myself to be honest with you ما خطط له Guys, I was actually scared, so I was playing smart. So waxaan sameeyay dadna waan iska horreysiiyey dadna waan iska dambeysiyey aan dhexdan galay waxaas lahaa hadduu shabeelku idinku soo boodo kuwa hore ama kuwa dambe ha qaato marka waxaan qoray imikana god baanu gelaynaa godkaas bahalaa ku jira hadday doonaan ilaahay khayr ha ka dhigo I'm really scared Oh my gosh. يا ربي. كان كان تصورنا صوص لكن مو بلان ديك كسوه بيك هنا جلس. بسم الله الرحمن الرحيم. حال كاين قليل. بسم الله. صدق لاس بيسوق هذا نينو. This is bloody scary. marka halkan uu soo gala libaaxu ما ها يعني كورما amazing anigu waxaan u malaynayaa ciyaal shidaad inaad garanaysaan in kale mooyaane ciyaal shidaad bana same family ka nimi waxaan meesha dhan ka fikerayay uun waxay ahayd uun talow ma shabeelkii baa idinku soo booday mise libaax leanna waxaan maqlay story maalin horeen maqlayay meesha hoggaas libaaxu wuxuu kasoo tuuri jiray markaa animalka ama wuxuu soo qabsado halkaa kasoo tuuri jiray deetana uu soo wareegi jiro uu soo degi jiray markaa hoosta aan meeshaan ku jirno ayuu iman jiro ku cuni jiray markaa run iyo been waxay tahay mooyaane aniguna markaa libaaxun baa sawirnaa iyo shabeel This is bloody scary. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا دري مرواتنا كان خير بقى عقدتوس وضد صوت مرتي وطاعد كان كنتوس مقالي روح نجح كان خير بوبن كي مدري مرة تاجت صورة عادي
laakiin si ku xangoodo wiina ku noqonin taayirkii inta taayirku ma gun karo subxaan allah gobolkan aan imika joogno gacan libaax waxaan ku arkay geel aada iyo aada u fara badan arigu kadalik aada buu u fara badan yahay dadka dhaqda meeshan geedkan aan nimi waa geed aada iyo aada taariikh u leh waa geedadkii berigii waxaan malaynayaa sanadkii hore inay ahayd ma xasuusto laakiin ay lagu shiri jiray maxay ahayd hore imakan waxaan tegaynaa qayb kale qaybtii buurta insha allah ayaanu tegaynaa la daawada insha allah albaabkani kii aanu kasoo galnay maaha waa mid kale imikan waanu ka baxaynaa waxaan tegaynaa qaybta insha allah buurta dhekadeeda buurta markaanu ka tagnana ninkana nasii qaadayo maadaama unasii raacaya maadaama markii hore lunnay waxaanu ku niri ma doonayna inaanu lunno haddana markaa nasii kaxee markaa tuulo yaroo halkaa u dhow ayaanu insha allah geenaynaa halkana magacyadoodii bay ku qorteen ku qoraaye والله MashaAllah, tabarakallah. Look at these trees. What brown iyo green isku dhex jira is so beautiful. And look at this view. Idin ma sheegi kara how I feel. So anyway, inshallah, haddaad wadankeena timaadaan inaydan only Hargeysa iyo Berbera iyo meelaha yaryar isa soo kee Burca iyo inaydan isku koobin. Waxaan idin odhan lahaa travel sameeya, socda, soo barta wadankiina, kusoo dalxiisa. Weliba is nice when you have your own car or maybe markaad at groups ku raacdaan is amazing experience. So ad weliba camping samaysaan, habeen soo joogtaan ama 2 habeen, and then in the morning halkaa kasoo kacdaan, yani aad iyo aad buu wanaagsan tahay. Anigu I didn't get the chance, lakin inshallah next time aan tago camping baan sameynayaa, inshallah groupiyan kaxaysanayaa, waa more fun. ku dhaato dhigii ragaygiyo kaandhuu xasiisto dhagartii halyaygo kaan nacaab u soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo kaan may dharaarti dhulka xidhiidhka hoosiyo burca kaga dhawaaqe Somaliland ka dhabo hayga dhicin hadheeli inshallah imikana waxaanu ku noqonaynaa Hargeysa. Waxaa soo daadanaya roob ayaa isa soo madoobeeyay, marka waa inaanu ka gaadhnay intaanu soo daadanin. Talabada cadceeduna way soo madoobaanaysaa, wadadina waa wada iska raf ah oon wanaagsanayn, marka waxaanu doonaynaa inaanu inta yara fiidka tahay inaanu Hargeysa insha allah aanu ka gaadhno hadduu ilaahay yiraahdo iftiinka.
waxaanu sugaynaa iminkana driverkii. Guys, I'm not gonna lie to you, this is one of the scariest roads I've ever been in my life. Oh my god, like markaanu sidaa meesha usoo galnayba we start praying ducadii adduunka ayaa naga dhamaatay. Yani halkaasi waa jar, gaadhigu hadduu shaagu in yar uu sidaa u leexdo ilaahay kuu naxariisto. weligay allahay waddo ka khatarsan maan arag. tan anagu manaan soo marin maadaama aan lugnay magaalooyin kale iyo waddooyin kale aan soo marnay, laakiin this road is one of the dangerous road I've ever been. Wallahi subhanallah, bal alhamdulillah rabbil alamin, ilaahay baa naga soo badbaadiyey, ilaahay baana mahadda iskale, alhamdulillah rabbil alamin. miiraale soo kacay meel mahigan jilbaha dhigay dhirtu ay magoosho makayo caleentii isku maydhax soomiye dhulka midhood ka soo baxay muranoo dhex yaalo anaaka macaaniyo waxaan ahay masciideed hadal laysu mari karin maashe barwaaqa muuqoodaynaayahay marmar baan ku moodaa ama kugu mataalaya runta lagama maarmi maalintaan ku halacsadaylayna tahay mageli sida mayay arooryaa miiraale soo kacay meel mahigan jilbaha dhigay dhirtu ay magoosho makayo caleentii isku maydhax soomiye dhulka midhood ka soo baxay muranoo dhex yaalo anaaka macaaniyo waxaan ahay masciideed hadal laysu mari karin maashe barwaaqa muuqoodaynaayahay marmar baan ku moodaa ama kugu mataalaya runta lagama maarmi maalintaan ku halacsaday meel dhiman layna tahay maad madow igama geli runta lagama maarmi maalintaan ku halacsaday meel dhiman layna tahay maad madow igama geli anaaka macaaniyo waxaan ahay masciideed hadal laysu mari karin maashe barwaaqa muuqoodaynaayahay marmar baan ku moodaa ama kugu mataalaya. maasha allah tabaaraka allah, sidaad u aragtaanba roob baa da-ay. nimcadaas arkaysaan meeshan aan marayna waxaa la yidhaha biyo fadhiisiga. taayarka gaadhiguna uu naga yaro xumaaday, marka insha allah tuulo yaroo naga horeeya ayaanu tegaynaan kasoo buuxsanaynaa. insha allah waxaan jecelahay inaad ka hesheen maanta vlogaygii. alxamdulilah, had a great time. We are in Hargeysa now, and habeen wanaagsan, good night. calankan ku dhaato dhigii ragaygiyo kaandhuu xasiisto dhagartii halyaygo kaa nacaa